warka farxadda lan maanta idii haya waxa weeyaan in qaybta sagaalaad ee filimkan amba taxanaani uu soo bixi doono bishan aynu ku jirno ee 2 February 18 aynu u noqono qisada filimkan. sanadku waa 1974 askari Hoover waxa uu ku socdaa qoyska Sawyer family oo uu ka dhashay dilaaga wajiga xunay. Sawyer family maaha kuwa dhiibaya dilaaga, isla markiiba iyaguna waxa goobta yimid koox budhcad ah oo weerar ku ahaa qoyska Sawyer. waxaa bilaamatay israasaasin labada dhinac ah, laakiin rasaas isdaba joog ah. Sawyer family waxay noqdeen kuwa laga awood bato, raggiina ay rasaastu wada hadlaysho. ugu dambeynna gurigii waa lagu gubay. mid ka mid ah budhcadii ayaa waxa uu arkay hooyo ka tirsan Sawyer family oo dhaawac ah, inan yarna dhabta ku haysata. inantii yareed amba gabadhii yareed ayaa uu ka qaatay waanuu dilay hooyadii. intaan fahanno, inantan yar waa jilaayada filimka, magaceedana waa Heather. hanu soo noqono, inantii yareed waxuu ku ritay gaadhigii, wayna korsadeen isaga iyo xaaskiisuba. 24 sano kadib, tani waa Heather, waa gabadhii yareed, waxaana ka shaqaysaa meel supermarket ah. ninkanna waa Ryan, waa Heather saaxiibkeed. waxuu tusay waraaqo dhagomitiye ah oo beri hore soo baxay oo Heather eeyadeed ay qortay, iyo dhaxalka guri ku yaala tuulada Newit oo iyada ku qoran. Heather waxay ku noqotay odaygii iyo islaantii soo korsaday, waxayna weydiisay sababta ay ugu qariyeen intaasoo sannadood, beenna ay ugu sheegeen. ugu dambayn runta ayay u sheegeen inaanay dhalin. xanaaqiina waa iskaga timid gurigii una tagtay saaxiibkeed Ryan. waxa ay u yeedheen asxaabtoodii kale ee Nikki iyo Kenny, waxayna ku qancisay inay la soo eegaan guriga ay dhaxalka ku heshay ee ku yaala tuulada Newit. safarkoodii ayay bilowdeen xilli habeennimo ah oo roobda'ayo. sidaada ay sidhaahdeen dhaqaaq, waxay gaadhiga ku dhufteen nin waa Darli. waxa uu sheegay inaanay waxba soo gaadhin, balse uu bilaa baabuur yahay, safarkiisuna uu yahay waddada ay socdaan. waxaanuu ka codsaday haddii ay sii qaadi karayaan inuu jeclaan lahaa, waana ay sii qaadeen. ugu dambayn waxay soo gaadheen guriga dhaxalka u heshay Heather. iyaga oo hortaagan waxa uu yimi looyarkii ee islaanta iyadood ay ugu dhiibtay furayaasha guriga. ay gudaha u galeen, wayna la yaabeen alaabta qadiimka ee quruxda badan ee taalla guriga. Heather dibadda ayay soo baxday iyadoo aragtay qabuuraha reerkeeda ee ku dhex yaala beerta guriga, waxayna dul istaagtay xabaashii hooyadeed. markay damceen inay magaalada hore sii galaan, ninkii ay jidka ka soo qaadeen ee Dheeri ayaa ku yidhi safarkayga halkan ayaan kasii bilaabanaya ee mahadsanidin. balse Dheeri tuug ayuu ahaa. markay ay dhaqaaqeen ayuu guriga dib ugu soo laabtay, waxaanuu gurtay alaabtii qadiimka ahayd ee taalay. waxaanuu helay sidoo kale furo weyn, isaga oo raadsanaya furahan weyne halka uu furayo. waxa uu usoo dhaadhacay guriga qaybtiisa hoose. albaab weyn oo bir xadiid ah ka samaysan ayaa ka hor yimi. si kasta oo uu awood iskugu dayo inuu furo, waa uu furi kari waayey. isaga oo deedayaya wuxuu ku furo, waxaa gadaal kaga yimi dilaagii wejiga xumaa, waanuu dilay tuugii. markii ay magaalada ka soo adeegteen, Heather waxay isbarteen askari dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Carol. sidoo kale waxaa meesha soo istaagay duqii tuulada, isna isbarteen. kadib waxay dib ugu noqotay gaadhigii ay fuushay, waxayna ku laabteen gurigii. markii ay fureen albaabka, waxay arkeen in alaabtii maqan tahay, waxaadayna tuugii ay soo kaxaysteen. Heatherna si gaar ah ayay uga xanaaqday. waxay bilaabeen inay casho samaystaan, waxaana karinayay Kenny. isaga oo madbaxa ama kijinka ku jira, waxa uu arkay albaab ku qarsoon kijada, jaranjarooyin hoosena leh oo lagu dhaadhacayo qaybta hoose ee guriga. waa u dhaadhacay, balse markiiba waxaa soo weeraray dilaaga. waxuu isku dayay inuu ka baxsado, balse dilaagu maaha mid uu ka dheereynayo, oo intuu ka daba booday ayaa uu dhabar ka geliyey yaambo hoosna ugu jiitay. Ryan ma uu ahayn mid maqlaya, muusig dheer ayaa u shidnaa, halka Heather oo iyaduna ay joogtay dabaqa sare oo ay daawanaysay alaabta guriga taalla, mana aanay maqlayn qaylada. iyada oo daawashadii ku jirta ayaa qolka jiifka waxay ku aragtay meyd qalfoof. waa ayeeyadeyda. hoos ayaana u soo daadegtay iyada oo qaylinaysa, balse guriga cidba waa ka weyday. waxay soo gashay kitadii, waxay aragtay dilaagii wejiga xumaa oo jarjaraya meydkii. baxso ayay istidhi, balse dilaagu markiiba waa uu qabtay. dhulka uu ka jarayna waa isuuxday. waxay soo toostay iyadoo jiifta qaybta hoose ee guriga. dilaaguna uu jarjaraya meydka Kenny, sudhayna birtii hilibka, jidhkiisana laba ugu kala jarayo mishaartii elektroniga ahayd. baxsasho ayay isku dayday, balse albaabku waa xidhnaa. waxayna jaanis ku heshay inay ka soo baxdo albaabka dambe ee guriga, waxayna markiiba u carartay dhankii qabuuraha oo ay ku dhex dhuumatay sanduuq qabuuraha. dilaagu markiiba waa u arkay halka shanqadha ka baxayso, waxaanuu isna ka daba yimid sanduuqii ay ku jirtay. isaga oo sanduuqa marinaya mishaarta ayaa qayladeedii waxaa maqlaya Ryan iyo Nikki. marka ay u dhawaaqeen dilaaga, iyaga ayaa ku soo jeedsaday dilaagu. dib ayayna uga galeen hoolkii xoolaha ay ku jireen, albaabkana hoos ay ka soo xidheen, halka dilaaguna uu albaabka looxa amba alwaaxa ka samaysan uu soo marinayay mishaarta. Nikki oo gacanta la heshay qori ayaa soo qaadatay, qorigiina kuna dhufatay halkii uu ku beegnaa dilaagu. gaadhigii ayay dhammaantood soo fuuleen, balse dilaagu mid diyaar ahaa ayuu ahaa
ahaa mana rabin in nolol ku sii daayo. waxa uu mishaartii ka mariyey taayirka hore ee gaadhiga, shilna ay sidaa ku galeen. Ryan shilkii dhacay ayaa ku dhintay halka Heather iyo Nikki ay dhaawac fudud yihiin. dilaaga wejiga xuni wuxuu ahaa mid daaqada gaadhiga kasoo dhex weerartamaya. gaadhigii ayaa dhanka loo rogtay wuxuuna furtay albaabkii. mishaartii ayaanu calooshii ka mariyey Nikki. Heather oo banaanka uga soo baxday gaadhiga ayaa ku qaylisay dilaaga si aanu u jarjarin Nikki. iyada ayaanu u soo jeedsaday waana u eryaday. waxay soo ordaanba waxay isla soo galeen carwada lagu caweeyo. dadkii meesha joogay qof kastaaba naftiisa ayaa u la cararay. Heather oo ka fuushay birta leexada wareegsanta. dilaaguna uu sugayo intay leexadu hoos soo daadegayso ayaa askarigii hore isku barteen Heather waa Carle uu meesha yimid. waxuu ka qabtay booskaalada balse isla markiiba dilaagu wuxuu sida dhagaxa ugu tuuray mishaartii. ka gabashaduu ka gabaday dilaagu meesha uu maba joogo. askarigiina wuxuu Heather u soo kaxeeyey saldhiggii bilayska. iyadoo fadhida qolka dembi baadhista ayaa faylkii family sawir laga qoray oo meesha yaalla akhrinaysa. waxayna ogaanaysaa in dilaagu uu yahay adeerkeed. duqii degmada iyo korneelkii saldhigga way u qaadan waayeen in weli uu nool yahay dilaagii wejiga xunaa. waxayna gurigii u direen askari kale kaas oo video call ku daawanayeen. waxayna si toos ah u daawanayeen dhiigga meesha daadsan faraha bini'aadamka ee uu dilaagu geystay. waxaa hoos askariga ugu daadegay qaybtii hoose ee guriga. waxaana u arkay dadka sida adhiga oo kale birta loo suray, kuwa kalena miiska loo saaray. daawashada xasuuqa ka dhaca meeshana waa odkaysan waayey askarigu. isagoo isla dib u noqo ayaa sidna waxaa dilay dilaagii wejiga xumaa kaas oo faas dhabarka kala dhacayay si arxandarro ah. saldhiggii ayay ka soo baxday Heather waxaana soo qaadaya askarigii. Carl una sheegay inuu geenayo meel ammaan ah balse askarigu waa khiyaamo leh. waxa uu xidhay Heather dilaagii si ay daban ugu noqoto ay chance ku helaan ay ku dilaan dilaaga. dilaagu markii uu yidhi mari mishaarta ayaa wuxuu arkay calaamada laabta kaga taalla Heather. waxauna ogaanayaa inay tahay inantii yarayd oo adeerka u ahaa. waxaanu markiiba ka furayaa xadhiggii ay ku xidhxidhneed. dilaaga waxaa gadaal ka soo weeraraya duqii kaasoo markuu dhacana silsilad qoorta ugu xidhaya rabana inuu meydkiisa ku hubsado mishiinka burburiyaha ah. haddaba waa markiisiiye iminkana waxaa badbaadinaysaa Heather oo intii odaygii kala disho waxay mishaarta u soo tuuraysaa dilaaga. dilaagu waxuu markiiba isaga jaraya silsiladda waxaana u jiidaya duqii dhankii mishiinka burburiyaha ahaa kaas oo marka ku dhex dhacay sidii suqaar oo kale hilibkiisa hoos ka soo daadanayo. ugu dambayntiina goobta waxaa soo gaadhay korneelkii saldhigga haystay balse ma toogan ee dib ayuu iskaga laabtay. Heather waxay ahayd mid dhayda dhaawacyadii soo gaadhay adeerkeed. silaskii ayadeedna xusuus ahaan u xidhata, meydkii ayadeedna caadi ugu asta qabuuraha reerkooda. sidaas ayaanu ku dhammaaday filimkan cabsida badnaa. waa inooyo qaybta kale ee xigta hadduu allah wada la idmo.